markaas ay guriga ka soo riday wixiina dareensiisay in uu jecel yahay in ay og tahay laakiinse wax farqiya ma sameynaysa lacagta haddii adii faqiir tahay aniga ayaa ku taajira waana ijeclaa kartaa ilaa ninkan hadda waxa soo dhawaatay dantii laga lahay in lagu fursado السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب قالية ولا شنزيو إذن الله أنا وعفمات قباء لمانتي وحيد رجينا إن أطيع عفمات قطان ميل والبودن إذا أكجوبتان سود الدوادة ومركلة إيو فيديو عصب فيديو كان معنتا أيام وحا إذن كوغو هاي قصات وحنون بضن قصة صوء ويل دلن يرا جعيل أقاضي قبر أشقيناي أما مدير ديسا اسكو داي دل أو طلق الشيني كبد بادي jaceelkii oo dirtiisa u dhimal rabayne ilaa ay hadda uu hayo qisadaas oo dhameystiran ayaa waxaad ku wada ogaa doontaan isla fiidiyogan soo dhawaada shaahiinin soo qaata hadaa hore ila joogtay waa ku mahadsan tahay daawashada fiidiyogan haddii aad igu cusub tahay fadlan soo dhawow channelkuna waa channelkaaga subscribe dheh furo gambaleelka si uu ku dhaafin wax walba ay soo dhigto qisadan ayaa ah mid aad u cabsi badan murugteedana wadato haddii aad tahay qof nafsadiisa ku kalsoon aan cabsi badnayn is ilaali wiilkan dhalinyarta ayaa waxa uu baahiyay qisadan xanuunka badan oo asiga ku dhacday wiilkan ay wuxuu ahaa wiil dhalinyara reerkiisana ku da'diisa saddexaad laba caruur ayaa la dhalatay asiga waa ninka reerka u weynaa subax walba wuxuu u soo shaqo tagaa goobaha dhismooyinka si uu ugu helo shaqo oo maalinta siti uu ku dibirto qotolyoonka xaafadooda min awal waxa sameeyna shaqadeeda engineer kadibna waxa dhiso shaqaalooyin fara badan haddii ahaa lahaayeen dad isku xiran oo group ah oo mar walba isla shaqeeyo iyo haddii ahaa lahaayeen dad markaa maalinta siti qotolyoonka isku keeno kadibna kala yaaco wiilkan ayaa wuxuu nasiib u helay guri la dhisaayo ee leedahay habeeneeda asiga jaceelku u qaadi doono sidoo buu u jeclaaday habeeneedan ayaa waxa ay ahayd mid wiilkan duruuftiisa in ay ka faa'iideysato rabtay aad ayuu u soo dhaweysatay wiji furfuran ayay tustay shaqaalooyinka kale ay ka dhaweysatay ayadoo dan leh laakiinse wiilka maskiinka oo arintan ku dhacday ma uusan ahayn mid arintaas og arinta laga leeyahay ayaa ah mid aad u fog ninkan markii habeeneedan ee xoogaa oo ka dareemay naxariis uu soo dhawaasho jacayl lacaniir mar galabtii oo kala raatibka markii la qaadanayo raatibkiisa in raatib loogu daro in arrimaha oo familkiisa laga wareysto in yacni la dareensiiyo in qof maskiin oo garab istaag u baahan uu yahay ayadan ay dareensiiso in ay garab istaagayso ayuu wuxuu u qaadaybo jacayl laakiinse ayada ninka maskiinka danta ay ka leed hadda waxay noqotay mid u soo dhawaadabo Soomahan hadda asiga shabaq ayuu isku soo riday oo wuxuu jecleystay qof dabin u fidinaysay ama u dhiganaysay weli wax ma uu dareemin mana la dareensiinin kadibna habeeneedii shaqadii way u soo dhamaatay oo viladeedii waa loo dhameystiray laakiin ninkan waxay ka qaadatay teleefankiisa waxay la socotay gurigiisa arrimo qaas ah ayada ka rabtay laakiinse ninkan ma uusan ahayn wuxuu boobo mid is cajabiyay mar oo warbixinta bixinay ay wuxuu yiri waxaan ahaa mid aad ugu farxo mar walba ee telefoon u soo dirto ama ee la hadasho ama ee ku tiraahdo kaalay bal imow in email ku balamso si ay u siiso lacag yar oo markaas asiga guriga loogu soo ridaayay kadibna maalin maalmaha kamid ah ayuu wuxuu inuu isbiimiyay inuu u tagay mudiiradiisa oo ku yiri adiga ayaan ku jeclaaday waa ogahay in aad taajirad tahay aan faqiir ahay laakiin taas wax micnaa ma sameynayso oo aniga hantidaada ma rabi waxaan ahaa doonaa nin mar walba iska soo shaqeysto shaqadan xoogaa shaqo ka fiican haddii aad isiisan kulay aniga waxa iga go'an inaan shaqeysto isla mudiiradii shaqadan way ee dareentay ninkan xoogaa in uu hadda yahay mid shabaqa uu soo dhacay waayo mar walba uu telefoon u dirto shaqo walba oo ku jiro waa mid aanan diidin
oo u imaado maya dhanbooba ka ilaaliyey markaas ay guriga ka soo riday wixiina dareensiisay in uu jecel yahay in ay og tahay laakiinse wax farqiya ma sameynaysa lacagta haddii adii faqiir tahay aniga ayaa ku taajira waana ijeclaa kartaa ilaa ninkan hadda waxaa soo dhawaatay dantii laga lahay in lagu fursado kadib ayuu wuxuu bilaabay in uu waqti siiyo u tago in waqtiyo dheer la qaato maalinta dambe ayuu wuxuu ku tireeyahay in ay guursatay diyaar ma u tahay ha ayuu ku yiri diyaar waa u ahay okay maanta nuskeena keen maanta ilaa ibris wixiina joogi doontaa la soco ninkaan ha isqaban qaabiye ha tago meeshii lagu balamiyay dantii laga lahaa ayaa laga dhameystirabaa habeenkii oo dhan loo sheekay subaxii si uusan wax biyo u cabin ninkaan waaba nin ee qala rabtabo asiga laakiinse ma oogo qisada murugada badan ee arintan ku duugan ayaa waxa ay tahay habeenadan lacag walba way ay haysataa laakiinse way weysay kidiyay ninkan kilidiisa ay waxay rabtaaba ninkeedii hore ama caruurteeda aabahooda in ay u gashato ilaan waa naag la qabo ninkana ka xanuunsan yahay dhowr iyo 10 sanane sariir ka saaran una ildaran laga bedelo kili uu ka jiran yahay ninkan ay wixii istiri ka baxso Allahu a'lam in dad badan ku sameysay xarakaadkaas ninkan ay wixii istiri ka baxso kadibna adeer ani isku lever maniye maxaa meeshan ka soo doontay in la dhaho ninkii habeenkii oo dhan si loogu sheekeynaa waaga markuu bariyay ayaa waxa uu imaadeen ilaa ay 4 ruux gaarayso kadibna ayada qolku ugu soo baxday min dhaawax uu ku maandoorsamaya lagu sameeyay waxyar kadib wuxuu dhahay marka dambeeso waxaan dareemaa in uu jawiga iga qasbaayo in aniga dhan si kala aan noqonayo ugu dambeyntii uu dhacay waa la baahiyay biyo laga ilaaliyay kadibna cuntada ku soo sameeyna markii la dhahayne arintaas ayaa ku dhacday gaari ayaa la soo saaray ninkii markii jawiga sida loo qasay wuxuu leeyahay mar ayaan waxaan ku soo kacay gaari anoo saaran markii labaad oo soo kacayene isbitaal uu yaalay markii saddexaad oo soo kacayne shaarci jiifay ayuu markii arintiisii markuu arkay in xaaladan ay wax ka qasayihiin ayuu wuxuu sameeyay wuxuu wacay qoftiisa telefonkeeda uu dansan yahay ilaa nin muddo la socdi waaye adiga sidoo ku heli kara ayuu helay kadibna wuxuu ku tiri dantii aan ka lahaa waa aan ka waayay because waa xanuunsan tahay labada kaliya buu way ku fadhiyaan adaaba dhakhtar u baahan isoo daaway wiilkii ayaa wuxuu u tagay ugu yaraan dhowr dhakhtaro kaliyihiisa way caafimaad qabaan asigana waa nin caafimaad qabo qoftii asii oo jeclay ayaa waxay isku dayday in ay qalato beddelna samaysato laakiinse way u shaqeey waayeen ninkan dhakhtar walba oo u tago oo kaliyihiisa fiiriyo waxa la waa caafimaad qabtaa alxamdulillah kadib ma asaab isku sheegay bo siriqdan asi loo sameeyay qof kale oo soo ugu dhicin ona jeclaanin dhibaatan loogu soo gaarsiinin dareenkiisa awgiisa ayuu wuxuu ugu baafiyay kuna yiri aniga waa caafimaad qabaa laakiin maalintaas Allah subhanahu wa ta'ala ani ilaaliyay oo kaliyeega xanuun baan ku tusay maalintaas ay hadii aniga oo noqolaha nin xanuunsaneen ee doctor markaas ibaara ii arki lahayn kaliyeeda waa la baxsalaha kadibna ama aan noolaado ama aan dhinto aniga qusay lahayd soomahan arintii sidii ayuu ku baahiyay si loogu digtoonaado cabsi waay ha isku jeclaanin qof aad aqoonin hayay waa isku yimid arintii jecelka ayaa waxay noqotay mid loogu faa'iideysan lahaa asiga laakiin asiga wuxuu leeyahay jecelka aan u qaaday marnaba ma ahan mid hadda iga maqan oo dhibkaas dhan ayadu ii geysatay laakiinse mararka qaar waa xasuustaa waana u xiisaa sheekada xanuunka badan ayaan halkan ku soo gabagabeynayaa qof dhibaatadaas kula damacsaneed oo dunidana ku dhaafi lahayd ma xasuuso lahayd mana sii jeclaa lahayd ra'yigaaga waa muhiim anigateeda mayaan taaganahay fakatax kama fatuura ka dhici lahayd meel halis yar leega gaarsiiyay
حتى حاجتين ما أنا كسر لعبة لهن خليص وقليسين هذا هو إلى جوبتي وكما سنتهاي داوش هذا أدي أعطيه عصبة فترة سودو channel كاga سبسكرايب فرق قبل كسي وكو رافين وحول باني عن صوتي ولا شيء زيو كله إز حسابي أنت أنا لو حسابي نكهر باي باي